السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الضوء يا ملك استاذ جوجتان كسر هذا برنامج كارو أو أنا ورئيس كل يوم لندن ودمية شهرية الشمال لان مدن مهد فارح عادن شو كم ذا رجع طوليها كي كنا القدم ما خاصة عاصمة دي سكون هيجن وجهرين مهد كسر تيفي عالمي كذا تيفي هذا ولا أضبط مع صنطة الحمد لله رب العالمين والدوح وجهرين بالمهضو مرك كان لقي كان ورئيس راسي كده جلي مهد وكمه نقصي بالتاريخ هذا يبقى الصدى ذا يكون يحن وحبة شابة. والله أضبط مع صنطة يمكن ورئيسة ومدة رئيس مالان يوم أفصل قوة عشان تدعوا سوا السلامية. والله أنا وحن كل شيء مجال برا ودك سومالان حافظ أبو دبي هل كم حيمي تبعيدي تقلد مركب العمين سومالان waxbarashada hoose iyo dhexe iyo sumcadda sare halkan ku bartay halkan aan maxaa heeday aan ku koray hadda alxamdulillah halkan aan raadiyo caruur xaasba ku leeyahay ma dhawaan safilayo waxad ku tagtay dalkii hadii jeena waxad ka mid tahay ragga fiiska ku nool dalka Denmark Soomaaliland khaasatan wal guud ahaan waxa laga siisay xaaladda guud ee jaaliyadda Soomaaliland ku nool dalka Denmark walaalow hadda marka hore Denmark waa wadamadii reer Soomaaliland oo runtii ugu soo horeeyeen sagaashanadii markii maxay ahayd dagaalkii qaraara maxay ahayd wadanka dib lagu soo xoreeyay oo bilaamay reer Soomaaliland waxay dadkii ugu horeeyay ee wadanka yimaada runtii inta wax ka horeysay reer Soomaaliland oo simaanada hore ee wadanka magaraasay 67 ka yimi sida odaga abahay kale tusaale ahaan iyo rag la midka ah oo runtii halkan kaga jiray markii dambana markii magaraasay dagaaladii ama wadankii Soomaaliland isku uur jiray uu muxuu ahaayay hawshiisa dagaalkiisu bilaamay waxay ahayd dadkii magaraasay halkan jaaliyad rasmiga ah ka furay runtii ummadda isku yimi jirtay waxa la moodaa muddo ugu dambeeyay in runtii dad badan reer Soomaaliland ay ka guureen Scandinavian Denmark ay guureen casriga Ingiriiska dadkii dhalasho lahaa oo dhan maanta alxamdulillah waxa joogo dad badan Soomaaliya joogto Denmark tusaale wax ku nool 17,000 ayaa ku nool qiyaas ahaan reer Soomaaliland waxa lagu sheegaa qiyaasan ilaa 4,000 maxay ahayd reer Soomaaliland ay degan marka waa jaaliyad taariikh dheer leh waa jaaliyad maxay ahayd dad badan oo dawladda kala dambeeyay runtii ka soo baxay oo maxay ahayd ama wasiir ha noqdeen ama agaasime ha noqdeen ama ha noqdeen maxay ahayd dad qaranka meel kaga jira marka runtii waxay ahayd dad runtii wadan la tirsado oo maxay ahayd runtii caana oo dadka ku nool runtii ay maxay ahayd ay ka soo iftibaxeen marka waa dad waa wadan balaan weey ما هذا مركز لقينا أن الدنيا كانت فاصلة كلا واحد كمية ورق كل بدون بجرتوه ضلكي كعاوسان وطيب كل بحلات كقاط الورقات سكر كم هذا الحشد ولا لو خوارون قفك بالعادكو معي هذي إنه ودي كيسي وحلكو مارت وكيمي إنه حد يبقى عليه أيام مهمسن أنا قلت صالحان ما توح لما وحكش شقية بانك اللي حدير مارك كشقية وحنا هاي هتدر جوت معي هذي بانك أنا هاي مدة استثناء هذا وان كشغيدي أو محي هذي أو أنت أغنتي خبرة أنا ماشي كوفر ديو إذا تاسوء أو تاد سوى كسوة أقول كله أي حد هذا الشيء سكوت يا إنان محي هذي ودكي يدك يدي وحقوق عليو وهذا هو الشيء هذي عن كوير تتعبد قار كم ده أو ده تشالد كسكو محي هذي ودكي أنا وحكي قبله تصالحان وحكي ده أورك اللي رافع فيشين أو رنتي هذا ودكي أنا عاك نقضي oo maxay ahayd waxaantu tahay magaalada Berbera waanu umada reer Soomaaliland kalluumaysatada aan u fasalsin karadino inay helaan berif inay helaan maxay ahayd meel kayda oo kalluun ay dhigtaan talaagayooshi in loo habeeyo hadii doonayeen in maxay ahayd ay geeyaan dhoofiyaan wadamada qaarka ay u dhoofiyaan iyo hadii doonayeen in wadada gudihiisaba maxay ahayd ay geensadaan marka anagu urka injo ahaan waxaan nahay urur kalluumaysatada reer Soomaaliland caawiyo
oo runtii haddii noqoto tababar haddii noqoto berif ay naga qaataan haddii noqoto meel kaydo aanu meel wax u dhigno iyo haddii noqoto dee dhiirigelin meel yar maxaa tusaya markii aanu hawsha bilawnay 2011kii oo halkan ka aasaasay dheer maarag Somaliland ka aasaasay wasaaradda qorsheynta qaranka aanu aanu ka diiwaan gashanaa as urur NGO ah oo international ah dee laashashkii ama kalluumaysatadii waaga active ahaa dhowr toban hay way koobnaayeen maanta tusaale ahaan dee dhowr 200 oo maxaa ahayd kabriya ayaa ka jira ilaa 100 in ku dhadhowna waa active oo ka shaqeystaan ama ha weynaadeen ama ha yaraadeen ama qaar meel dhaxaan noqdeen laakiin taas waxa ku tusaysaa in ummaddeena ay u soo jeesatay kalluumaysatada kalluunka baddan ku jira oo tusaale ahaan badda Somaliland waa ugu yaraan 860 kilomitir weeye dee kalluunka ku jiraana waa dee kalluunka adduunka ugu caansan uguna fiican uguna qurux badan uguna nafaqo badan marka inta laga faa'iideysto oo maxaa ahayd taa dadkuna u soo jeestaan waa muhiim weeye dawladda waddanka Somaliland gacanta Muuse Bixi gacanta ku haya madaxweyne ka yahayna dee runtii waxaa barnaamij ugu jiray inay waddanku isku filaado طبعا احنا عارفين شركتاسي فروكاسي NGO-gaasi la yiraahdo Fairfishing fikradaasi aad ku samayseen ma research aad waad samayseen kiimid research kalksan yani fikradaasi sayid ku dhalatay runtii xaqiiqada markii ka hadlo nin dheenish ahaa oo ina reer Somaliland qabay Allah uu naxariista hadda dhintay ayaa fikirka noo yimid aniga iyo Afrika ayuu soo bandhigay uu yiri aan waddanka wax ka qaban waa garan kartaa nin cadaan ah oo dheenish ah oo gabar Soomaali qaba reer Somaliland runtii dee inaad fadhiga u kacdo oo tiraahdo bal waxa la qabo runtii waa muhiim weeye taasaan runtii ninkaas oo la rosay Jacob Johansson ayaa runtii maxay ahayd fikirka noo yimi annana ku raacno waxaan ku dhiray bal waxa la waxaynu qaban karno aynu qabano markaan waxaan ku bilawnay lacagta shaqada ku bilawnay oo cid allaale cid waxna sidaasi ma jirin laakiin alxamdulillah maanta ilaa heed EU lacagta nagu deeqdo aanu gaadhnay oo aanu mashruuc ballaarino ilaa Lasqori ilaa Saylac aanu ka sameeyno مشروع عاصي Fairfishing طبعا Somaliland waxay noqotay sumcadeedii iyo dhaqaalahaan labadaba waa mid saameyn ku yeeshay kor loo soo qaaday laakiin waxa jira arrimo ka soo baxaya dhinaca haddii noqoto maamulka ama kalluumaysiga qaarkood inta badan cabasho ka muujiyo waxaa u malaysaa cabashooyinkaas ku salaysan yihiin runtii dee cabasho la waayi maayo oo meel kasta wax laga qabto dad cabadayo kalluumaysataduna xaq bay u leeyihiin waxay fahmi waayeen ama laga dhaadhici waayo ama haddana aanu gaabsi aanu samayno in iyagu dhabarka naga dharbaaxaan oo na dhiirigeliyaan waa muhiim weeye cabashadaas waxyaalo badan baa jiray oo runtii ay naga tamayeen oo maxay ahayd ay doonayeen inaanu dedejino tiina runtii dee waanu soo ballan qaadnay safarkii ugu dambeeyey oo hadda 2 week ka joogno aynu kula kulannay maxay ahayd kalluumaysatada reer Berbera iyo dee maxay ahayd kalluumaysatada kale ama dadkii ka bacmajirka ka ahaa kalluumaysiga runtii waxyaalo badan iyo fikir badan iyo ID badan ugu soo kordhiyeen oo maxay ahayd aan runtii la qaadanay iyaguna aad baa uga dhaadhicinay muhiimadda leedahay hada sharna waxaan aan ururka hada aan kala dagaalama aan runtii aan hada isku dayaa inaan xooga saaro in maxay ahayd lacagta ama waxaan soo qaadnay wadankii galo laakiin dibadda administration iyo wax la mid ah runtii xoog loo saareen taan runtii dee ururka Fairfishing waa urur kooban oo secretary kooban Copenhagen ku leh waxaan isku daynaa hadda in insha Allah inaan shaqaalahayga iyo maxay ahayd waxaan wax ka qaban ee waddanka ku baxdo oo si magaraasa dadkii waxaan loogu talagalay ay dib ugu noqoto anagu gudida saro ururka aasaaska ahay waxaan ka gudub xogaba ka ahay wax mushaar kaba qaadano gudi ahaan haddana dee waqtiga iyo timekayga iyo magaraasa iyo dee maxay ahayd waxaanu gelinaa energy magaraasa ay si aanu wax uga faa'iidno ama lacag ka helo kale taas waxay muujinaysaa inaan u diyaarnahay inaan waddankayga dhisno oo maxay ahayd nimanka caddaanka guddiga nagula jira runtii aanu soo jiidanay oo nin kastoo hadda muwaadin reer Somaliland meel kastoo adduunka joogo inuu soo jiido ama intaa ku soo jeediyo waddankeena Somaliland ayaa muhiim ah taana hadda jira waan u joognaa insha Allah haddana da afgarad iyo maxay ahayd heshiis aynu isla gaarnay anaga iyo maxay ahayd ummadda wada shaqeynay gudaha Soomaaliya joogay mahad duwan waxa socdaa kaga soo noqotay dalkii guud ahaan marka deegtid wadankii Somaliland in dhaqaaliyahan tahay sidoo kale qofka qoyaankiina markii maskaxdiisu ku soo meesha aan joogo waxa arkay ka talooyin haddii jiraan haddii horumar la sameeyay
bal waxaad nala wadaagtaa adiga aragtidii wadankii muddadaas aad joogtay waxyaaba ku baxay walaal maxamed hore aad baa mahadsan tahay runtii 2 week baan joogay 2 week bade shaqo iyo arrimo baraabad baa u joogay way gaara iyada hal jeer marka wadanka tago anoo wareysta waxa galadka wadanka jooga wasiirada kala duwan ee wadanka gacanta maanta ku haya iyada madaxtooyada runtii waanu kulanay madaxweyne ku-xigeenka mudane Sayli aanu kulanay waana soo wareysanay oo runtii hal jeer aan garab taagan oo maxay aan wars isdhaafsiisano runtii waxyaalo badan marka aan wadanka soo arkay wadanka alxamdulillah rabbil caalamiin maanta meel fiican maraya qofka wadanka taga ama 5 biloodba 3 bilood taga 6 bilood taga ayaa arkay isbedelka wadanka uu maanta ama sida xawliga ugu socdo inkastoo goboladu ay kala duwan yihiin oo runtii la moodo Hargeysa inay si aan caadayn ay u koriso oo maxay ahayd maalinta ka dambaysa ay wax cusub ku soo kordhayaan hase ahaatee waxa hal jeer haboon oo muhiim ah in dawladdu la shaqo qaato oo maxay ahayd maamulkii iyo hay'adkii dawladda inay dhisto waxyaalaha xoog ugu badnaa xoog looga hadlayay waxa ahayd sixbarka wadankii maanta sixbarku runtii waa wax maxay ahayd dadka shaqkiisa magaalada ay hoos u dhibisa dhinac kasta marka laga eego rag badan ayaan iska wareysanay arrinta sixbarka iyo maanta wadanka dhaqaalihiisa oo wasaaradda maaliyadda ka mid tahay mudane wasiirkeena Yuusuf Maxamed iyo wasiir ku-xigeenkiisa Maxamed Daahir oo ahaa runtii aqoon-yahana oo dhaqaalaha soo bartay iyo sidaas wasiirka Yuusuf oo ah maxay ninta ku soo koray wasaaradda maaliyadda runtii oo maxay ahayd wax badan ka fahansan sida magaraas wax loo maamulayo wadanka dhaqaalihiisu runtii waan ognahay wadan dhaqaale ballaaran leh ma laha xooluhuna maanta way naga xidhan yihiin waxa kaliya maanta dawladda naga soo galaa waa qaadka weeye qaadkaasi garab kasta wuxuu nagala noqdaa dollar taasuna wax u fiican ummadeenna haba yaratay maaha maalin kasta dollar baa kaa baxaya markuu dollar kaa baxana waad ogtahay lacagtaadii iyo shilinkan Somaliland dhulku gelaya oo tii dollar lagu kala iibsaday ayaa noqotay maxaa ahayd in lacag kala shisheeyaan wax lagu kala iibsado maartay wax lagu weydiiyo oo tukaan kasta macaahi islaamka u tagtid koorada magaalada $3 $4 runtii oo la intimaada laakiin dawladda maanta alxamdulillah hogaaminta Musabbixi Cabdi hogaamidiyo talaabo fiican ka qaatay oo maxay ahayd oo ah dadkeena inay aaminaan shilinkeena taasuna waxa ka mid ahayd in dadka lagu khasbay inay maxay wixii $100 ka yar inaan saadka ama dahabka isku dirin ma hado aan ka dhex kala tabcan min aqoonyahan waa ka dhaqaaliyaha marka dhinac kale laga eegana mid kamid ah bangiyada dalka Bannaad caasimadda ee waliba ka tahay mas'uuliyadda musharaxa markaad eegtid guddiga madaxweynuhu saaray iyo waxa weeye guddiga qaybinta ee sixbarka hada jeerna sixbarka ma ku dhaco waxa jira qodobo ama wadala adu marka soo eegtay guddigaas wadooyinka iyo hababka ay marayeen ma ku muuqdaan mid ah inay wax ka qaban karto sixbarkaas wadanka ka jira walaalow waa su'aal fiican weeye hada guddida madaxweynuhu sameeyay waa guddi maxay ahayd ka kooban mas'uuliyadii muddo guddi wasiirada fulin lahaa weeye oo ninkasta wada meel ama qof kasta oo wasiir ah wasaaradda mas'uulka yahay inuu wixii hirgeliyo marka wax la warkala waa guddi loo arkay in wixii hirgeliso hasaatan wax jeclaan lahaa inay ku dhex jiraan dad maxay ahayd aqoonyahan oo economist ah oo dhaqaalaha maxay ahayd xog badan ka haya ayaan jeclaan lahaa way wasiirada iyagoo hawshoodii wasiirnimo haya ayaa lagu daray haddana magaraas ay ka soo tala bixiya sixbarka dhaqaalihii iyo aqoonteedii taasoo waa map labaad weeye oo shaqo labaad weeye iyagoo wasiiradii hawshada wasiirnimada haya oo ku fadhiya waan xumiti waan golihii arinta fulin lahayd oo wixii alaala wixii maxay ahayd laga la yimaado hase ahaatee waxay la shaqeeyeen la shaqeey ku jira gudoomiye baa ka dhexe ku jira guddida waxa jeclaan aanu in loo sameeyo dad guddida hoos fadhiista oo maxay ahayd talooyinka iyo dhaqaal urus isu keena oo guddida hordhiga si guddidaas markaa iyaguna u falleeyaan
oo aasa wasiirnimo ahaan waxay ku daraan waxay ka bedelaan si madaxweyne ugu gudbiyaan arrinta loo fuliyo anigu runtii waan wasaaradda maaliyadda gaar ahaan maxamed daahir waan ka wada hadalnay runtii sidii maxaa yeelay aan shakhsi ahaan uga caawin lahaa ama maxaa yeelay aan gacan uga sii lahaa aan aqoonteedii khibradooda aan ugu dari lahaa tusaale ahaan maanta dee waxaa fadhiya meel maxaa yeelay banka dhexe Denmark fadhiya lambarka ama qodobka koowaad ee banka dhexe Denmark mas'uul uga yahay waxa weeye lacagta Denmark koronka sida loo adkay lahaa aan hoos ugu dhicin si xad gudbaan aan u kicin aan u qaali garoobin wadiga sheegay qalabka qaali garoobaya oo investment ama maxaa waddanka waxa ka iibsamayso haduu koronka xoog u qaali garoobo marka bank dhexe aan maxaa yeelay aan anigu hada dhowr ka ahay oo aan orod ku sameeyo waxa kamid ah inay dhaqaalaha ama dhaqaal dheer maaray system dheer maaray kaadimista dheer maaray koronka ilaalintiisa dheer maaray inay gacanta ku hayaan ayaa ka muhiim oo iyagu ka soo saaraan oo maxay ahayd ka soo saaraan wax allaala wixii liid ku ah koronka ku ah waxaan igu maqaalaa anoo maxay ahayd runtii xogteeda xog u haynin bank dhexe maxay ahayd Somaliland awoodiisu runtii aad bay maxay ahayd daciif u tahay waxa yaala shuruudo badan oo maxay ahayd oo la hirgelin ayaa yaala awoodiisu waa yar bank ba maanta ka xog badan oo waddanka bacam jira oo maxay ahayd private ah ayaa ka xog badan oo maxay ahayd xog ku muquuladii waxyaalo badan marka anigu talahaan iyo tusaalahanba waxaan soo qaadan lahaa